habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan qodobada wararka ugu weyn waxa yihiin boqolaal qof oo degan qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland ayaa ka banaan baxaya dil iyo kufsi loo geystay gabadhii 12 jir ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo warbixin dheeraad ayaan idinku haynaa faldambiyeedka Gaalkacyo wararka kalena waxa ka mid ah محمد بخاري oo natiijada hordhacay hogaaminaya Nigeria ayaa mucaaradku ay diidan yihiin dayuuradaha dagaalka Hindiya ayaa duqeeyay meelaha ay mintiduuntu ku tababartaan ee dhanka Kashmirta Pakistan mashaqo ayaa la soo sheegayaa Pakistanna way hanjabtay caawana waxaanu booqannay jannada yar meesha la yiraahdo waa dhul laga xidhay dadka oo dib u soo kabanaya dalka Thailand kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkan waa London caawa iyo caalamka qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedka Puntland waxa saacadihii ina soo dhaafay ka dhacay barnaamijyo ay dhigayaan dhalinyarada oo ka cadhaysan fal kufsi jirdil iyo dil isugu jira oo magaalada Gaalkacyo lagu geystay gabadh 12 jir ah oo lagu magacaabo Caashe Ilyas Aadan hadii aynu eegno dadka ka banaan baxayay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen dumar haddaan nahay waa dulmanahay dumar haddaan nahay waa rafaadsanahay dumar haddaan nahay waa dul ma socon karno oo gaari ma raaci karno oo ma lugeyn karno oo meel aad nama naqaano waxaan ka baqaynaa wiilashayagi waxaan ka baqaynaa nimankii garabka noo ahaa waxaan ka baqaynaa nimankiina difaaci lahaa waanu dulmanahay waxaan doonaynaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa inuu Gaalkacyo amni sugan uu ku qabtaa waa inaan xorriyad ku noolaanaa waa in Caashe cadaaladda iyo kuwii kaleba la soo saaraa tiirka maanta uma qabno qof dumar intii la qabsado la dilay in xaq la soo istaajiro uma qabno xeer Soomaaliyeed iyo xeer odayaaleed baa looga dhaqaaqaya laakiin waxaan rabnaa maanta tan dhacday in sharciga diinta islaamka la mariyo qirsuujiye ma doonayno wallahi ma doonayno maanta qoraxda waxa u taagana gabadha walaashay ah oo ka khiraaday biri haddaan ka aamusaanaa liiga geysanaya walaalayaal waxaan leeyahay cadaaladda lagu dhaqmo sidoo kale waxay barnaamijyo ka dhaceen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari iyadoo dadkii halkaasi isugu soo baxay ay ka muujinayeen sida ay uga gadoodsan yihiin sida ay wax yihiin isla markaasina waxa la sheegay waxa ka dhacay banjada magaalada Gaalkacyo ay uga xun yihiin iyadoo ciidamada amniguna ay sheegeen inay falkan imka dad u soo xidhxidheen qaar kalena lagu daba joogo hadii aynu eegno madaxweynaha Puntland ayaa isaguna ka hadlay waxaad ogtiin habeenkii xalay ahaa waxa lagu kufsaday gabar yar oo 12 jir 13 jir ah magaalada Gaalkacyo oo si xil loo farxumeeyay haddana la dilay oo haddana intii la soo qaaday gurigooda la hordhigay waxa sameynaya waa dhalinyaro waxaan rajaynayaa dawladdu inay tallaabo adag ka qaadi doonto cid kasta oo ku xadgudubta karaamada bini'aadanka iyo nolosha waxaan rabaa inaad idinkuna qaybtiina ka qaadataan akhlaaqda iyo adaabta iyo horumarka iyo ilbaxnimada iyo danaha dadka in la ilaaliyo gabdhuhu waxa loo baahan yahay waa hooyadeen waa walaasheen waa xaasaskeenni waa mustaqbalkeenni waa dadka runtii karaamadeenna ay ku jirto waxay u baahan tahay in la dhowro dhacdadani ma aha tii ugu horeysay ee ka dhacda deegaamadaasi hadii aynu eegno waxay ka dhacday meelo badan oo deegaamadaasi ka mid ah sida hadii aynu eegno Garowe Galdogob Gaalkacyo Guriceel halkaasi oo qaar ka mid ah kuwii dambiyada geystayna la soo xidhxidhay haddaba waxaa khadka si toos ah ugu jirta Skype-ka Ifraax Axmed oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waxay ku nooshahay magaalada Muqdisho laakiin imika waxa joogtaa Dublin Ireland Ifraax ku soo dhawo BBC-da waad maqlaysay madaxweynihii Puntland Siciidani waxa uu yiri talaabanu qaadayna sidee baad u aragtaa hadalka madaxweynaha Puntland waxa filaya madaxweynaha inuu bixinayo go'aan ah oo in degdeg dadkaas lagu keeno sharciga in cadaaladda degdeg lagu hor keenaa laakiin hadalkiisa wuxuu u hadlayay qof activist oo tuugay dawladda Puntland oo weydiisanayo in mataqaana cadaalad loo helo gabadhaas asigoo ah madaxweynihii maamul goboleedka asigoo ah qofkii go'aanka lahaa wuxuu u hadlayaa asigoo ah inuu weydiisanayo in Puntland cadaalad hor keeno laakiin madaxweynaha oo kaliya ma aha in waad ogtahay fal dambiyeedyada noocan kufsigu
meel kasta ka dhacaan bulshada laftigeeda inay ka qayb qaadato maanahan inay gabdhihii ilaaliyaan hadday tahay ururadii haweenka ururadii dhalinyarada oo culamaa diinkii ganacsatadii ma in maamul ama dawladu lagu haleeya in dadka la ilaaliyo amnigoodii sida arkay hadda videoga bulshada tusinaysay waxay ahayd hooyo dhahayso jid ma mari karno waana la kufsada cadaalad ma helno hooyadaas hadalkeedu wuxuu ahay madaxweynaha inuu gaaro tan kale maxaa la yirahdaa isha dhalinyaradii soo wada baxday oo leh Caaisha cadaalad hala siiyo tan kale waxa rabaa dawladda jamhuuriyadda federaalka sida hadda ay sheegtay Galdugo Gurceel Galkacyo Garowe tan maxaa la yiraahdaa isha Gurceel midda naxdinta badan waxay ahayd walaalahay taaban walaal idaa gabadha iyadoo dhahaysa marada laga furay waa cunug yar subxaanallah damiirtii ragga xagee aaday waxaan codsanayaa dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sharciga oo xakameynaya kufsiga kaas oo hor yaala baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare iyagoo fiirinaya dhibaatooyinka lagu hayo haweenka iyagoo fiirinaya dhibaatooyinka lagu hayo gabdhaha inay sharciga si cad u meel mariyaan haddii ay rabaan inay gabar badbaadiyaan haddii kale maalin walba sana u calacaleena u tuugeena dheena dawladda waxa noo qabato amba ma taqaana madaxweynihii maamul goboleedka waan gartay sidaad ogtahay Ifrax Soomaalidu waa dad qabaa'il oo xeer jajab ku dhaqmaan xeer jajabkii Soomaalidu ma ka gudbi kartaa sidee bay kula tahay in loo gudbo sharci dhaba oo qofkii dambi geysta sharciga la mariyo xeerkaas iyo caadadaas iyo qabyaaladaas waxa kaliya u gudbi karna waxay tahay sexual offense bill-ka in la meel mariyo sexual offense bill-ka dawladda federaalka way sameysay wasaaradda haweenka sameysay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa soo codeeyay hadda wuxuu hor yaalaa aqalka maxaa la yiraahdaa isha golaha shacabka ayaga loo baahan yahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan inay noo fiirin haween kaliya balse ay fiiriyaan dhibaatooyinka ka dhacaya agagaarka waxyaabaha aan maqleenina ka badan waxa dhacaya waan gartay Ifrax waxaan ku soo gabagabeynaa adu gabadh Soomaaliyeed baa tahay sidee baad u aragtaa markii aad maqashay warkan sidee baad u dareentay dareenkaaga shakhsiga waa sidee hadda warka marka ugu horeysa waxa rabaa in aan cambaareeyo social media dadka ka imaaday Europe iyo America iyo mataqaana Asia ayagoo og inay Europe ka jirto xuquuqda la dhoorayo qofka shakhsiga image-kiisa in la isticmaalo waxa arkay dhalinyaro badan oo Facebook isticmaalayo sawirka gabadhaas yar waxa codsanaya marka ugu horeyso walaal haddii aragtid in gabadhaas xuquuqdeeda heshid walaal ha isticmaalin sawirkeeda maxay yeelay bari walaalkeeda hadduu arko waa qaracmay hooyadeed haddii aragto waa qaracmaysa hooyadii waalidka gabadha ay ka dhimata xuquuqay leeyihiin marka ilaalina xuquuqda gabadhaas yar yaana isticmaalin social media ha laga joojiyo annagoo sawirkeeda isticmaalin waa codkeena u bixin karna waan hadli karna tan kale waxa codsanaya maamul goboleedka Puntland madaxweynaha waad mahadsan tahay Ifraax Axmed oo nagala soo xiriirisay magaalada Dublin aad baad Ifraax u mahadsantahay bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa furay maanta shirka qaaraanka loogu ururinayo Yemen 4 bilyan oo dollar ayaa la rabaa in la helo si loo caawiyo 24 milyan oo qof oo aad u baahan dagaalka ayaa ka hor istaagay dad badan inay kaalmo gaadho cunno iyo dawaa waxaana dhacday in cuntadaasi qulunta mararka qaar hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa Vietnam jooga si wada hadal ula yeesho madaxweynaha Trump ee dalka Mareykanka bari Khamiista waxa uu ku yimid tareen halkaasi madaxweynaha Mareykanka ayaa isna goordhow soo gaari doona Vietnam waxayna yeelanayaan shir madaxoodkoodii labaad oo lagu garfooynayo hubka nuclear-ka ah iyo cunaqabateynta saaran Pyongyang hay'adda maamulka sharciyada maaliyadda ee Mareykanka ayaa garsooraha New York ka dalbatay inuu maamulka shirkadda Tesla maxkamad ku soo ogo to dambi bay yiraahdeen kadib markii uu fariin qoraal ah ku tweet gareeyay ama ku qoray tirada wax soo saarka shirkadda waxay ku andacoonayaan in fariintu ay uu qoray baraha bulshada dhigay ay ka hor imanayso heshiis hore la isugu raacay oo ahaa in aan shirkaduhu soo saarin qoraallo aan lagu heshiinin doorashada madaxtinimada Nigeria Muhammadu Buhari ayaa natiijada hordhaca ee aan rasmiga ahayn rasmiga hogaaminayay iyadoo xisbiga mucaaradka ee PDP uu diiday waxayna tirintu ku tilmaameen mid aan sax ahayn oo aan la aqbali kareynin gobolka waqooyi ee Kano boqolaal qof oo taageersan 67 jirkan ayaa u dabaaldegay inuu hogaaminayo natiijada hordhaca ah wuxuu Buhari doonayaa inuu mar labaad qabto xilka madaxweynaha
waxaanu loolan adag kala kulmaya Atiku oo isna 27 jir ah kaasi oo ballan qaaday inuu ganacsiga gaarka ah horumarin doono waxaana uu sheegay natiijadan ay istaba ay hadhaysay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee PDP ayaa sidan u sheegay BBC-da The PDP is forced to take a stand and make the following pronouncements. waxaa PDP lagu qasbay inay istaagaan ayna arrintan ka hadlaan xilligan muhiimka ah sababtoo ah dimuqraadiyadeena waxay halis ugu jirtaa burbur iyadoo ay jiraan daandaansi cagajugleyn iyo isku day lagu afduubayo dimuqraadiyadda iyo isbeddelka hanaankan taariikheed waa inaan xaqiiqadii sheegaa in PDP ay hayaan wadada guusha iyo madaxtinimada haddaba isxakameeya dulqaadna muujiya balse qaar ka mid ah taageerayaasha Maxamed Bukhari waxay aaminsan yihiin inuu mar labaad noqon doono madaxweynaha waxaana yiraahdeen sidan waxaan halkan u joognaa in alla aan uga mahad celiyo fursadda uu guusha doorashada nagu siiyey waxaana sugaynaa natiijada dhabta ah ee madaxweynaha mustaqbalka kaas oo ah Maxamedu Buhari Buhari waa madaxweynaha soo noqonaya waxaana u soconaa heerka midkan xiga kaanu waxa iska leh Buhari mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi aad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka nagala soo xiriir BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxa inoo soo socda waxaanu caawidinaynaa gabadh yar oo aan hore idinkaga sheekeynay sidii ay uga dabaaltay barafka iyo dabaylaha iyadoo Suuriya ka soo qaxday imikana dib ayaan ula kulannay wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka balaan idin xusuusiya qodobada caawa wararka ugu waaweyn boqolaal qof oo degan qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa ka bannaan baxay dil iyo kufsi loo geystay gabadh 12 jir ah magaalada Gaalkacyo dalka Nigeria Maxamed Bukhari ayaa natiijada hordhaca hogaaminaya iyadoo mucaaradkuna ay diideen Hindiya ayaa sheegtay inay weerar cirka ah ku qaaday Kashmir qaybta ay maamusho Pakistan iyagoo bartilmaameedsaday maleeshiyaad 2 toddobaad gudahood ku dilay 40 askari oo Hindiyaan ah saraakiisha New Delhi ayaa sheegay inay baabiyeen xero ay maleeshiyaadku lahaayeen weerarkan ayaa cirka ku shareeraya xiisadaasi labadaasi dal oo labaduba nuclear haysta dhibaatada Kashmir ayaa salka ku haysa xaaladda ka haloosan labadaasi wadan tan iyo markii la kala qaybiyay labadaasi dal 1947 Cabdixaafid Caawil Ismaaciil ayaa inoo haya waa deegaankan keynta ah ee Hindiya sheegtay inay ku weerartay maleeshiyaadka Jaysh Mohammed ama Jem howlgallo ay hagayeen sirdoonka ayaa Al-Saydi Saaka Hindiya ku duqaysay xerada ugu weyn ee ku taala Balakot oo ay ku tababartaan maleeshiyaadka Jayshul Mohammed howlgalka waxaa lagu khaarajiyay tababarayaal saraakiil sarsare iyo kooxo kale oo jihaad aloosayaal ah Hindiya waxa ay sheegtay in diyaaradahoodu dul mareen xeryahan oo ay duqeeyeen qof degan tuulo meesha ku taala ayaa BBC-da u sheegay wixii uu arkay qiyaastii 3 subaxnimo ayaan maqalnay qarax xoogan kadib waxaanu aragnay diyaaradaha oo duulaya aroortii ayaanu meesha soo eegnay waxaana ku aragnay hub laakiin Pakistan waxa ay sheegtay inaan khasaare jirin cidna wax ku noqon afhayeenkooda ayaana tusay sawiradan oo sheegay in diyaaradaha lagu khasbay inay degdeg wax u ridaan oo ay noqdaan wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa ka digay cawaaqib xumo jawaabta ay ka bixiyaan Hindiya gardarro aanan loo baahnayn ayay bilowday Pakistanna jawaab ayay ka bixin doontaa xilli iyo meel munaasib ku ah weerarkan ay Hindiya qaaday ayaa imanaya 2 toddobaad kadib markii kooxda Jaysh Mohammed 40 askari oo Hindiya ay ku dileen weerar ismadaamin ah deegaanka Kashmir ee ay Hindiya maamusho goobtan waxaa isku haya Pakistan iyo Hindiya muddo dheerna kacdoon ciidan ayaa ka jiray Hindiya waxay ka ugaarsataa maleeshiyaad qaybta ay maamusho Kashmir maalmo ka hor waxaanu goobjoog u ahayn howlgalkan ciidan waxa halkan isku qarinayay 3 maleeshiyaad ah ciidamaduna waa ay ku daba joogeen
sanadihii u dambeeyey ciidamadu waxay qaadeen boqolaal howlgallo oo noocan oo kale ah toddobaadyadii ugu dambeeyeyna arrimuhu faraha ayay ka sii baxayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javad Zarif ayaa ku dhawaaqay inuu xilka ka tagayo isagoo intaasi raaciyay in diblomaasiyadda Tehran uu saameeyay dagaal gudaha Iiraan ka dhex socda. qoraal uu soo dhigay Instagram-kiisa ayuu kaga raali galiyay wixii dib u dhac ahaa 5 sanadood ee uu shaqada hayay. xildhibaanada isbedel doonka ah Iiraan ayaa ku gubaabiyay madaxweyne Xasan Ruuxaani in aanu aqbalin iscasilaada. wararka hadda soo baxaya ayaa sheegaya inuu madaxweyne Ruuxaani uu ku gacan sayray inuu aqbalo go'aanka wasiirka. Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka warramaya. maxamed jifaad sariif waxa uu muddo badan ahaa wejiga diblomaasiyadda caalamiga ee Iiraan gaar ahaan dalalka reer galbeedka. wuxuu horay u ahaan jiray safiirkii qaramada midoobay balse waxa uu noqday diblomaasiga ugu sarreeya ee jamhuuriyadda islaamiga 2013 markii madaxweyne xasan ruuxaani uu awoodda u qabsaday. waa wasiir arrimo dibadeed ingiriiska ku hadla oo maraykanka wax ku soo bartay. waxa uu door weyn ka ciyaaray wadaxaajoodkii adkaa ee Iiraan. waxa uu noqday mid ka mid ah ragga dejiyey heshiiskii nuclearka ee Iiraan 2015 waxaana uu garwadeen ka ahaa dadaalkii heshiiskaasi uu ku sii socon lahaa kadib go'aankii madaxweyne Donald Trump ee sanadkii hore Maraykanka uu uga saaray. laakiin iyadoo aan la filayn ayuu Instagram-ka uga dhawaaqay go'aankiisa uu isku casilayo. waxa uu qoray waxaan idinka raali gelinayaa inaanan sii wadi karin shaqada marka la eego dib u dhacyadii yaryaraa ee xilligaasi dhacay. sariif waxa uu cadaadis ka haystay siyaasiyiinta mayalka adag ee Iiraan oo aan marnaba jeclaysan ama aaminin wadaxaajoodkii uu la galayay reer galbeedka. kadib iscasilaadiisa wasiirku waxa uu sheegay in siyaasadda dibadda ee Tehran uu sumeeyey dagaal gudaha ah. mararka qaar waxaa jira fursad inay soo baxaan kuwa dhexdhexaad ah laakiin inta badan qolyaha mayalka adag ayaa soo hara. taasina waa tan aynu maanta aragno guusha kooxahaasi ee nidaamka dhexdiisa. madaxweyne ruuxaani oo la kulmay dhigiisa waddanka Suuriya shalay ayaa weli ay tahay inuu ka hadlo inuu aqbalay iyo in kale tagitaanka xubin muhiima oo ka tirsanaa kooxdiisa. Mr. Sariif kama aanu qayb gelin wada hadalkii madaxweyne Asad. lamana oga in arrintani ay qayb ka tahay iyo in kale go'aankiisa uu xilka uga degay. caawiyo wararka ciyaarahan haddii aynu eegno goolwalaha Chelsea Kepa ayaa la ganaaxay 1 toddobaad mushaharkiisa isagoo raaligelin bixiyay. waxa uu diiday in la bedelo maalintii Axaddii finalkii koobkii Carabao halkaas oo Manchester City kaga badisay Chelsea. Brendan Rodgers ayaa la filayaa in loo cumaamado tababaraha Leicester kadib markii ay kooxdiisa imika Celtic ay ogolaatay inuu la hadlo Leicester kuwaasi oo Axaddii Claudio Paul shaqada ka eriyay tababarnimada. sanad ka hor waxaanu idinka warranay gabadh yar oo Suuriya u dhalatay taasi oo ka badbaaday dabaylo qabow oo ka dhacay xilligaasi ay ka gudbisay xuduudda Suuriya iyo Lebanon. balse Sara waxa wajiga ka garaacay dhaawacna ka soo gaarsiiyay dabaylahaasi qabow. inta badan qoyskeeduna waxa ay ku dhintay qabowgaasi maray. BBC ayaa mar kale booqatay waxayna ka soo kabanaysaa imka dhibkii soo gaadhay. Axmed Xaaji Xasan ayaa faahfaahinaya. gabadhan yar ee Sara waxay ku ciyaaraysaa wiifowgan. waa inan yar oo faraxsan oo 4 sano jir ah. laakiin sanad ka hor sidan ayay u ekayd xilligaas oo BBC-du ay ku booqatay isbitaal ku yaalla Lubnaan. madowga wejigeeda ka muuqda waxaa sababay qabow aad u darnaa. dadkii soo tahriibinayay ayaa kaga soo tagay buuraha Suuriya kadib dabayl aad u xoog badan. waxayna xilligaas u socotay inay aabbaheed ugu tagto dhanka Lubnaan. hooyadeed, walaasheed ka weyn iyo ayaydood dhammaan way barafooween wayna dhinteen. hadda waa iyada iyo aabbaheed oo keli ah. maalin kasta Sara aabbaheed waxa uu u mariyaa kareem yaraynaya nabarka wejigeeda ka muuqdo. qalliin dheeraad ah ayay u baahan tahay. aabbaheedna weli uma sheegin waxa ku dhacay inta kale ee qoyska. sanad ka hor ayaan kuu sheegay markii aannu is aragnay inaan wax kasta u noqonayo hooyadeed, walaalkeed, walaasheed. taas ayaanan u sameeyey. nin fiican ayaa tahay. maalintii aan booqanay Sara iyo aabbaheed waxaa la soo gaarsiiyey war fiican. UK ayaana aqbashay inay qaadato. maanta waxaan ogaanay inaan Britain aadayno.
mustaqbal fiican ayay saare u tahay daweyn ayay helaysaa waxbarasho ayay helaysaa waana arrin fiican It's very promising. إن شاء الله يكون مستقبلها أحسن وأحسن إن شاء الله. 1 2 3 4 3 4 5 5 6 saara waxayba hadda u sii diyaar garoobaysaa gurigeeda cusub 9 10 iminkana waxaanu idin geenaynaa goob dalxiis oo aada u qurux badan dalxiiska Thailand waa guusha ugu weyn ee dalkaasi gaadhay waana meesha shanaad ee dhaqaaluhu ka soo gala dalkaasi tirada dalxiisayaasha dalkaasi aad ayay u saddex jibaarantay 20 sanadood ugu dambeeyay qiyaas oo 39 milyan oo qof ayaa sanadkii booqda dalkaasi laakiin dhibaato ayay ka dhalatay arintaasi inta badan hareeraha xeebaha waa la dhistay sidoo kale waxaa dhibaateeyay dadka fasaxa u tagay halkaasi meesha ugu daran waa Maya Bay halkaasi oo ku soo caanbaxay filimkii Cabrio ee xeebta sanadkii la soo dhaafay ayaa la xidhay kadib markii dhammaan xayawaankii ku noolaa halkaasi ay baabeen Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad marka hawada laga eego waa qurux la yaab leh dhismayaasha cadcad ee ka soo baxaya badda buluuga ah ee la yaabka leh waa degaan cajaa'ib ah oo dhaliyey filim lagu sameeyey Hollywood laakiin filimkii waxa uu keenay magac iyo sumcad weyn xeebtii markay caan noqotay waxa burburiyay culayskii dadka kumanaanka ah ee maalin walba booqashada ku imanayay marka aan ka gudubna gacanka Maya waxaa mararka qaar joogi jiray in ka badan 200 oo doon gudaha gacankan yar umuusan ekeen gacan wuxuu u ekaa suuq sabaynaya dalxiiskii weli way imanayaan Maya Bay laakiin halka kaliya xeebta ka arki kartaa way dheer tahay koox ka tirsan waxda qaabilsan deegaanka ayaa halkaa yimid si ay u eegaan soo kabashada xayawaanka badda waxaa badi la arkaa waa shucaybkii badda oo googo'ay taasi waxa ay ka dhalatay sannado fara badan oo dalxiiska aan la habsamayn shucayb cusub ayaa lagu beerayaa badda hoosteeda sannaday qaadan doontaa inay kobcaan laakiin waxaa muuqata haddaba horumar inuu jiro markii degdeg loo xidhay deegaankaasi dalxiiska soo jiidan jiray dadka iyo ganacsatada deegaanku may jeclaysan way ogol yihiin dalxiis badan inuu imanayay laakiin aan la habayn bilowgii waxaana saameeyey qaar ka mid ah hakinta la sameeyey mana aysan caawinin muuqaalkeenna ah inaan leenahay shuruuc joogto ah waxaan haysanaa fikrad ah joojinta Maya Bay laakiin ma jiro waqti cad oo dib loo furi doono bilowgii waxaa la xidhay 4 bilood laakiin lama oga marka la furi doono qorshaa jira doonyuhu inay ku soo xidhaan jasiiradda dalxiiskuna goobaha ay lugayn karaan runtu laakiin waxa ay tahay ciidina ma oga si la isugu miisaami lahaa in deegaankaasi dhibaatada ku jira la hagaajiyo iyo in la helo malaayiin qof oo dalxiis ku yimaada xusuusnow wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caawiya caalamka waa mahadsantihiin daawashadiina anigoo Cabdiraxmaan Bidhaana iyo dhammaan bahda telefishinka BBC Somali waxaan leenahay intaanu kulmi doono berri toolaha hadduu eebeedmo sidaas iyo nabadgelyo